Sufyaan athawri Allah u naxariiste wuxuu ahaa imaam aad loogu yaqaanay zuhdiga. Wuxuu ahaa mid ka mid ah culimada muslimiinta ugu waaweyn dhinac walba. Waxaa lagu magacaabi jiray amiirka mu'miniinta ee cilmiga xadiiska. Sidoo u xifdiyey una ilaaliyay axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam darteed. Sidoo kale wuxuu ahaa mid ka mid ah culimada cibaadada badan, isagoo habeenkii oo dhan Alle dartii u istaagi jiray. Arday ka mid ah ardaydiisa ayaa wuxuu yiri, waxaan arkay Sufyaan oo jooga xaramka salaada maqrib sidii u sujuuday lagu aadimay salaada cishaha. Laakiin sidaas ay tahay, Sufyaan wuxuu ahaa nin Allah subxaanahu wa ta'ala siiyay hanti badan. Maalin maalmaha ka mid ah, nin ayaa wuxuu isku dayay inuu ku ceebeeyo hantidiisa badan, isagoo yiri, sidee zuhdiga iyo hantidan badan u kulmayaan? Sufyaan ayaa wuxuu yiri, aamus, haddii aysan hantidu ahaan lahayn, boqorradu waxay aqoonyahanada ka dhigan lahaayeen istiraasho. Kadibna wuxuu yiri, zuhdigu ma ahan inaad cunto qalalan ama aad ku labisato dhar duluf ah, laakiin zuhdigu waa inaad gacantaada ku hayso adduunyada oo aysan u gudbin qalbigaaga, isla markaana aadan u aaba yeelin inaad hesho ama inaad weydo midna. Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu arkay nin iska fadhiyo masaajidka oo u go'ay cibaado oo aan meel la aadaynin. Dadka ayuu weydiiyey xaaladiisa. Waxaa loo sheegay inuu yahay nin ka jeestay adduunka oo u go'ay cibaado. Wuxuu yiri, oo yaa wax siiyo? Dadkii ayaa waxay ku yiraahdeen, annaga ayaa wax isugu dardarno. Cumar ayaa wuxuu yiri, haddaba adinka ayaa ka cibaado badan isaga. Nin zaahid iska dhigay ayaa wuxuu damcay inuu ceebeeyo imaamka lagu magacaabo Abul Xasan Ash-Shaadili oo dhar qaali ah ku tukanaya salaada. Si la yaab leh ayuu u yiri, oo dharkan miyaa lagu caabudaa Alle? Abul Xasan ayaa ugu jawaabay, dharkan aan wato waxay caddaynayaan inaan ka kaaftoomay dadka waxay haystaan, balse adigu dharka aad wadato waxay caddaynayaan inaad weli u baahan tahay dadka. Waa sidaas, zuhdigu waa mid ka mid ah acmaasha qalbiga. Waa cibaado u gaar ah, waxba kama garin xaaladaada iyo jirkaaga siduu yahay. Waxaa laga yaabaa adiga wax walba haysto, Alle agtiisa inaad ka tahay zaahid, waayo qalbigaaga ayaa ku xiran Rabbiga abuurtay. Sidoo kale waxaa macquul ah adigoo aan waxba haysan, Alle agtiisa inaad ka tahay qof aan la mahdin, waayo qalbigaaga ayaa u calaysan Rabbiga abuurtay. Zuhdigu ma ahan inaadan adduunyo haysan, balse zuhdigu waa inaysan adduunyadu ku haysan adiga. Sidaa darteed, dadkii wanaagsanaa waxay ku ducaysan jireen, Ilaahow adduunyada naga dhowr oo inagaga filnaaw.